wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan wadatashi ah waxay ka daafurtay degmada Xudur ee gobolka Boqol. kulankan wadatashiga ah oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa la isku weedaarsaday hanaanka shacabka ku nool degmada Xudur ee gobolka Boqol ay uga qayb qaadan karaan ammaanka iyo horumarka degmadaasi. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Xudur iyo kan gobolka Boqol oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa waxa ay ugu baaqeen shacabka ku nool degmadaasi inay ka qayb qaataan horumarka ammaanka iyo bilic soo celinta gobolka Boqol. waanu soo fadaan wasiiryaal lama maalmood in roogdan samnaan in furtaano noona tama fadaano ortiska deeshan badloontiin roogdan commission ber wasiirinta roog dhabaatay deegaanka maana yaala neel ardan neel geebsatan markaas ka baadkiisa way bas ka hadaan isoo ku turjumaasan deegaanka wala ku jarisan ku turjumaasan yaseedasan antaas osyano ayte aman may osyano ayte taas wala lagu hadalaa madan walaal oo macnaha bulshada kale isku weerimay baa barnaamijka wasaaradda dhalinyarada iyo sportska wadata barnaamij oo may baa dhalinyarada Mayland qobode iyo sportska waana may dhamaan oo macnaha oo hatana may la qorsheeyo karo oo dhanka kala karo taas wala lagu hadalaa la falo markan kulay ilaa isii maalmood dareereen waa wada tashi iyo wada hadal iyo fikrad dhiibado oo macnaha dhan walba ku kooyso tan kale soo gudoomiyaha degmada sheegay meel raayisa dawladnimo walaan is aragaasan oo madiba mashruuc la fuliyo wasiir la weero wasaaradda walwalba oo la sameeyo hata wasaaradda ka lug leeyahay horti ma hada jartay hay'adaha wal isku wada jar iyo la wal isku dhasla jar iyo la hooli isku wada jar hata sidina dawladooyinka controlaan hay'ad kas wala ay sameeyay dawladda controlaan qofkii hatana wasaaradda u sayid يلا نغوص هذا سيسن هتبقى رجعتها ولا يحنانات هلا وسيد وزير حنانات هلا وكون ترو ولسن أوجاينا دولة الكونفور قبل ديجان كمان يكفلي يكون ولا يدنا يرد وزارة الروب مدن ساس ما يكتو سياسة مدن دولة نمي كتو سياسة ولا هذا عن ولا تشلو عن ولا شيء سيسن أبدين ديجان دبّرنا حمرين دبّرنا حمرتين سنفسين كم هايته إلهي مهتيس وان جذبتين سوال كوجودي ما هي سده تبع جودومي هذا اللي يرد قبل كشجاي عن ولا تشانو عن ولا هشينو كوجودي مدي سن ولا ثلاثة أو ميل سين كهاي الناس كقال يقربوا هو بلوك روك خلوا قوت دريش يلو كقول ده ميل كهاي تسوقي مسكود يقربه أو اسم قاعدين ميل سين كهاي تكلا أو كولا ثلاثة لو كقول وضكم قربوا لنا نسي يعني والله كسبني بن آدم إنه الله سبحانه وتعالى من يصير لكم والله كسبني يا أنتم هالدير دبعتني وزير الدولة وزارة dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Baaw Suufi oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo gobolka Boqol ay ka fulin doonto gobolkaasi. waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in shacabka ku nool degmadaasi ay ka qayb qaataan ammaanka nabadgelyada iyo bilicda degmadaasi. laakiin wala arag tan kale dhinaca haweenka wasaaradda ololay macnaha in dhalinyarada sportska iyo haweenka isla shaqeeyaan wasaaradda sidoo dhigooy Umar wasaaraddan haweenka shirida in iska kaaytan badantiin fara badantiin isfarbadiya wala xuquuqdin weydiisada wala aysan xuquuqdin karawaay tan aragoo tahniil soo cusub وني معنا دعيان كوزارة كس حكي لتين ولي وزارة الرياضة سبورتس كانوا بحكي لتينا انثيل تميسيات لا أفرتين شنجر هو يمكن أنا يروي قفطة وزارة الرياضة لا أري ما حقوقين كتبتين حقوق وزارة كلتين قيلة عن صدا وزارة كل الباب شو قراءة هذا هدي والسين جدينا ونسي القراءة هدي لا قراءة هنا هوين صوت آي واي أولادنا واي ودادنا واي أقودنا واي حقوقين مرول بمنتلك هذا الحق اللي وأنا قفكم معنا تاسي ليدون أصيب أنكار قوي بماينه من آلس وقبل أنكرمه أصيب أنكارم kulamadan ayaa waxay qayb ka noqonayaan kulamo kala duwan oo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay kulan yeelanayeen deegaanada iyo degmooyin ka tirsan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi.